hal qisan inii sheegi niman caddaana oo dalxiistayaal xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhalinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhaahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanaya oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi dadna waan lugtayda dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso mathal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa engine yar baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu yidhi kadibna dhowr sano sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xageega fadeed baan idhahnaa Jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo waliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobolada wadanka oo dhan baad ka furanaysaa markaa branch meelo maaragtaane aad ku iibisad kalluunka wadanka dhanba kalluunka adiga siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala daraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo villaayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi sownigii hurday maa imikadan waxaan ka wadaa macna isku aragti ma nihin noloshan daahirka maaha nolosha muslimku ibnu taymiya raximahullah ayaa yidhi inna lillahi jannatan fi dunya adduunyadan dusheeda ilaahay jannuu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu yidhi jannada adduunyadu waa maxay waa xayaat aliimaani walacmaal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay oo qadarka aaminsan raaxadu maaha nolosha daahirku ku hagaagta tan maanta adduunyada dadku masiibo u yaqaanana masiibo maaha adduunyada masaa'ib way jirtaa laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn sheeg masiibo way jirtaa adduunyada masaa'ibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaagii oo kaa dhintay waa masiibo islaanta oo kaa xanuunsata waa masiibo ganacsiga tijaaradii oo kaa baabada waa masiibo hatta ardayga jaamacadaha dhiganaya hadduu imtixaanka waayo masiibo u arkaa laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhire markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada